بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan jeclaystay halkan in aan ka yara hadlo maanta xuska dhalashada nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi mawduuc ku saabsan marka waxay dadku in badan isweydiiyaan nabiga xuskiisu ma bannaan yahay in la xusaa may bannaan tahay haddaba jawaabtu waxay tahay in la xuso nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi waxa ay tahay waa qadarin iyo weyneyn lagu weyneynayo Mustafa sallallahu alayhi wasallam nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuuna ka mid yahay in la xuso nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi asal ka mid ah usuusha diinta sababtoo ah weyneynta nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi iyo in la raaco afcaashiisa waa wax waajib ah haddaba haddii aadan weyneyn rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi haddii aad weyneyn weydo oo aad qadarin weydo waxay la micno tahay in aadan jecleen nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi haddii nabiga aadan jeclaanna waxay ka dhigan tahay adigoo aan raacin oo kale ayay ka dhigan tahay raacidda nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi oo la raacaa afcaashiis oo looga daydaa waxay ku imanaysaa oo kaliya in ruuxa uu jeclaado rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam marka ugu horeysa haddii kale waxay iska noqonaysaa arrintu waa sheeko ayay iska noqonaysaa haddaba weyneynta nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi iyo qadarintiisa oo la qadariyo martabada uu leeyahay xag allana uu ku leeyahay xagga muslimiinta uu ku leeyahay oo la qadariyaa waa arrin aad u weyn in la xuso nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhina waxay ka mid tahay asal ka mid ah usuusha iimaanka ayay ka mid tahay waayo nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi waa shahaadada barkeeda oo marka qofka uu islaamayo waa inuu qirtaa ashahaadkana muxuu yahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah barka kalena muxuu yahay wa anna muxamadan rasuulullah haddaba haddii aan ka egno markaa dhinacaas haddii aan ka egno usuuliga ah asalka wuxuu noqonayaa mid jooga haddaba nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi inkasta uusan xusin oo si toos ah oo muxuu ahaa mawlidkiisa si toos ah oo mubaashir ah uusan u xusin haddana nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi wuu u ixtifaali jiray dhalashadiisa oo isbuuc kasta waa uu soomi jiray sida uu sheegay imaam muslim saxiixiisa uu ku sheegay oo wuxuu yiri waxaa la weydiiyey nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi waxaa la weydiiyey maalinta isniinta sababta uu soomayo markaas wuxuu yiri waa maalintan isniinta ee aan soomayo waa maalintii la soo muxuu ahaa aan dhashay waa maalintii la soo bixiyay waa maalintii aan hijrooday marka soonkuna wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka ruuxa aadamiga ah ee alla uu ku caabudo midda ugu darajo sarreysa sababta allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yiri xadiid ka mid ah xadiidkiisa qudsiga ah kullu camal ibni aadam lahu ila soom fa innahu lii acmaasha aadamiga uu la yimaado isaga ayaa iskale ajarkoodii thawaabkooda hadba meesha uu darajada uu gaarsiiyo laakiinse allah subxaanahu wa tacaala ila soomka mooyaane fa innahu lii aniga ayaa iskale wa ana alladii ajzuu bihi anaana ka abaalmarnay addoonkayga micnaha abaalka allah subxaanahu wa tacaala uu nagu siinayo soomka uu nagu siinayo wax la soo koobi karo ma aha marka soonka cashuuraha ha lala xiriiriyo maalintii allah subxaanahu wa tacaala ee uu badbaadiyey nebi nuux iyo inta raacday ee doonida la fushay uu ka badbaadiyey biyihii ama cashuuraadii nebi ibraahim allah subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey qoomkiisa kolkii ay ku rideen dabka ay damceen inay gubaan aan la xiriirino ama cashuuradii aan la xiriirino allah subxaanahu wa tacaala uu nabi muuse uu ka badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisa uu ka badbaadiyey ha lala xiriiriyo intaba waa ay bannaan tahay sababtaa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi marka ay u soo haajireen isaga asxaabtiisa maka ee madiina ay u soo haajireen wuxuu u arkay
yahuudda deganeyd madiina oo soomaya marka uu weydiiyana waxay ugu sheegeen sababtay u soomayaan inay tahay cashuuraa in ay tahay maalintii allah subxaanahu wa tacaala uu badbaadiyey nebi muuse uu ka badbaadiyey muxuu ahaa fircoon waatii nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh naxnu awlaa oo uu yidhi isagana naxnu awlaa bihim annaga ayaana ka mudan oo markaa soonkii muxuu cashuuraa saas lagu waajibiyey marka inkastoo rasuulkeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh uusan ku amrin dadka haddana ma uusan reebin oo ma dhihin soon keliya halaygu muxuu ahaa ha lagu maamuuso dhalashadeyda haddii marka dadka muslimiinta ah ay nidaam kale ay muxuu ahaa ay ku maamuusaan oo intay isu yimaadaan xaflado la samaysto ama muxuu ahaa madxi ama siiradiisa inta la isugu yimaado oo caa'ilo kasta ay isu timaado ama asxaab kasta ay isu yimaadaan ama dad kastoo muxuu ahaa urur ah ay isu yimaadaan oo siiradiisa laga sheekeeyo oo madxigiisa lagu soo qaado oo muxuu ahaa ma reebana qaababkaas haddii loo muxuu ahaa dadku muxuu ahaa ay nabigooda maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ay u xusaan ma reebana dhalashadiisa ma reebana nebigana ma uusan reebin haddiise waa haddii markaasi aynay ka hor imaanayn kitaabka shareecada nabigeen maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh aysan ka hor imaanaynin ay ka hor imaanayn maqaasid diin alxaniif aysan ka hor imaanayn marka waxaan u arkaa in wax dhibaato aanay lahayn arrintuna ay tahay mid jilicsan ugu yaraan ilaa iyo 23 caalim oo ka mid ah culimmada islaamka ayaa isku raacay in mawliidka ama in la xuso muxuu ahaa nabigeen maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh in ay bannaan tahay oo ay jaa'is tahay waxaa ka mid ah ibnu taymiya ayaa ka mid ah oo kitaabkiisa qadaa siraat almustaqiim uu ku soo qaaday baabka fatwada bogga 297 wuxuu ku soo qaaday ama wuxuu ku sheegay in la weyneeyo nabigeen maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh oo laga yeesho maalin mid loo dabaaldego isaga ama dhalashadiisa loo dabaaldego sida ay samaynayaan dadka qaarkood waxa uu yidhi waa arrin ajar weyn laga helaya ayuu yidhi marka ibnu taymiya hadduu sidaa u yidhi marka dadka kale ee faraha badan ama culimada qaarkood ee iyaga isagu soo daliishanaya maxaa ku jaban marka in la raaco nabigeen maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh haddii aan raadino daliil isagaa ayaaba ugu horeeyaba waan u soo qaadan karnaa daliil waayo isaga ayaaba soomay oo maalinta isniinta ku maamuusay soon ku maamuusay sida aan hor usoo sheegay kitaabka haddaad u baxdana waad arkaysaa daliil waxaan soo qaadan karnaa aayadda ah qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun aayadda waxay nagu amraysaa in aan u faraxno naxariista والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرحمة نبي محمد صلى الله وسلم عليه أياه نحريست مد وين الله أوصي آدمك يدد يوم مسلمين تا ويا الله سبحانه وتعالى آياتك الوحوكيري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدو كلا سيدا أوسو وري إمام بخاري الله كرا نقضي السجو سوحي جنايا العباس حديث كيسة العباس أيا وحى وكريو ذي ولا الكيس أبي لهب أيو كريو ذي markaasuu ku yidhi abilahab oo iiga warran xaaladaada markaasuu yidhi xaalkayga maxaan ka warramaa naarta ayaan ku dhex jiraaya markaasuu ku yidhi abilahab intaa markuu yidhi kadib waxa uu raaciyey hase yeeshee waxaa laga fududeeyaa ciqaabka maalinta isniinta sababta thuwayba kolka ay ugu bishaaraysay dhalashada nebi maxamed ayaan aad ugu farxay buu yidhi marka sidaa darteed ayaa laga khafiifiyaa yidhi maalintaasi naarta oo xoogaha yaroo biyo oo 2 saac 2 farood dhexdooda ahna waa la isiyaa buu yidhi waxaan kaloo soo qaadan karnaa cumar bin khataab allah ka raali noqday asxaabii xilliga ramadaanka marka ay qiyaamuleylka ama salaad taraawixda ay tukanayaan kilikila ayaa loo tukan jiray nabigana ma uusan amrin hase yeeshee cumar bin khataab ayaa waxay la noqotay in dadka la ururiyo imaam keliya loo sameeyo sidii ayaa la sameeyey oo taraawixdii sidaasay kusoo bilaabatay oo cumar bin khataab laftigiisa ayaa adkeeyey arrintaas oo yidhi waa nicmat albidca waa bidca wanaagsan buu yidhi
gabadhii muxuu ahaa ee jaariyada ahayd ee madowga ahayd sida uu soo wariyay Burayda al-Aslami Allah ka raali noqday waxaa la sheegay gabadhaasi nabiga inuu aaday jihaad kamid ah jihaadada uu aaday markaa kadib gabadhan ay tiri haddii nabigeen maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka soo laabto jihaadkan oo Allah isagoo nabad qaba uu ka soo celiyo waxaan ballan qaadayaa inaan shicro oo aan dafna garaaco markuu soo laabtay ee nabiga u sheegtay arrintii oo ay tiri nabi maxamed sidaas aan ku nadaraya inaan sameeyaan raba markaasuu nabigeena u ijaazeeyey marka haddii nabiga ka soo noqoshadiisa dagaal haddii uu ijaazeeyey maxaad u malaysaa marka maalinta u dhashay haddii oo muxuu ahaa aan oo adduunyada ilaahay uu noo keenay oo naxariista alla ugu weyneed alla uu nasiiyay ay tahay haddii aan maamusno oo aan u dabaalnagno deeta maxaa ku jaban marka culimada islaamka inta badan way ka hadleen shirar fara badan ayaa la isugu yimid adduunyada la isugu yimid weliba waqtigan xaadirka ah bishii maarso 19keeda 2008 culimada way isu yimaadeen waxayna isku raaceen haddii loo xuso ama xuska dhalashada nabiga laga dhigo qaab wanaagsan oo akhlaaq ay ku dheehan tahay oo isdhexgal dumar iyo muxuu ahaa rag aanu ka jirin oo siirada nabiga lagu sheego oo laga hadlo hijradiisii oo laga hadlo ghazawaadkiisii in ay tahay arrin aad wanaagsan oo jaays ah ayay isku raaceen culimada sidoo kale shirki ay yeesheen 12kii bishii December 12keedii sanadkii 2019 ay ugu dambeeyay ay yeesheenna oo ay kamid ahayn culimada Sheekh Yusuf al-Qaradawi ay kamid ahaayeen waxay isku raaceen iyadana sida uu sheegay Sheekh Maxamed Zaqbi oo shir gudoominay shirkaas waxay isku raaceen in afarta madhabood culimada wada aaminsan oo maalikiyada leh oo xanafiyada leh oo xanbaliyada oo shaaficiyada leh intaba inay isku raaceen inay jaayis tahay ixtifaalka nabiga inuu yahay jaayis uu bannaan yahay ayay isku raaceen haddii markaasi loo raaco qaab wanaagsan oo dadka siirada nabiga looga hadlo oo muxuu ahaa looga sheekeeyo hijradiisii oo ghazawaadkiisa looga sheekeeyo siyaasadiisa looga sheekeeyo xukunkiisa sida dadka uu xukumi jiro looga sheekeeyo inay tahay arrin aad wanaagsan si dadka bay yiraahdeen ay ugu dabaqaan noloshooda maanta ah waayo nabi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa ku yiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal aakhir nabi aadan Allah ka raali noqday oo abul bashar ah markii uu galay gafkii uu ka dhacay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri uu weydiistay in uu u dambi dhaafo una ugu dambi dhaafo xaqa nabi maxamed markaas Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku yiri aadamow anigu nabi maxamed wali ma aanan abuurin barka sidee ku ogaat adiga yaa ku ogeysiiyay markaas wuxuu yiri nabi aadam يا رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت محمدا على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحويري الله يجي وينايو مركز أبورتي أيام ماذا حيجي سراء وقاضي مركز سمعك عرشي مال كمده أو أي كو قرنتاه لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز سوحن أوقاضي روح أجعشه مويانه إن آذن كل فاقين مقعد هذا مقعد إسرائيلين سادرتي مركز الله سبحانه وتعالى وحاو كيري صدقت وادر شيكتي يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي وادر شيكتي محمد نوا خلقي ننك أن أوجع له مركا نبي آدم نبي محمد سوى أن لا خلقين وأن لا بورن أيو أوغاذي عظمة أوليه هي نبي محمد صلى الله وسلم عليه qof kasto aadami ahna waa loo baahan yahay inuu sidaas u ogaado oo u tacdiimiyo nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam oo qadariyo qofka ka bax fitrada mooyaane Allah subhanahu wa ta'ala ayaa weynay nabigiisa oo kiiro ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa tahiray aqligiisa oo yiri ma dalla oo kitaabkiisa ku yiri ma dalla saahibukum ma qawa muusan lu saaxibkiin mana uusan iilan الله سبحانه وتعالى أي أرجيس طهيري ووحو يري ما زاغ البصر وما طغى الله سبحانه وتعالى أي عرب كيس طهيري أو يري وما ينطق عن الهواء كما الله وديس الله سبحانه وتعالى أي طهيري معلن كيس وحبري والله سبحانه وتعالى وحو كير كتاب كيسا علمه وحا وحبري شديد القوى نيك حوقة بدنا وملك الجبريل الله سبحانه وتعالى أي قلبي كيس طهيري ووحا يري ما كذب الفؤاد ما رأى ما أوسن بين قلبي سمارة وحو أركي أو هبينكي لدى المني إسراء معراجك
الله سبحانه وتعالى أيها طهير رسالة ديس أو الله سبحانه وتعالى وحكير كتاب كيسة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أيها طهير كل جيسة. فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أيها الله سبحانه وتعالى. هذا بقى الله وينا كر هذا أي أساس كنجي النبي محمد أو طهيرين مركا قدر كنبي iyo martabada uu leeyahay ma uu garanaya Allah subhanahu wa ta'ala iyo qofka muxuu ahaa ilaahay muxuu aqliga uu sii mooyaan Allah subhanahu wa ta'ala marka uu yeeray anbiyada kale magacooda caadiga ah ayuu ugu yeerayay tusaale markaan soo qaadan Allah waxa uu yiri ya aadam uskun anta wa zawjuka aljanna aadam dega adiga iyo afadaada jannada dega markuu u yeeray nabi nuuxna waxa uu ku yiri waa markii doonida الله سبحانه وتعالى أودجي دوني ذا راعي نبي نوح يقوم كيسة وحو كيري يا نوح اهبط بسلام منا سنة بدأ وقدك أو سلام نبت حقي نكتم هذا سيدو كالنبي إبراهيم مركو يري الله سبحانه وتعالى وحا يري يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأتكشر شيكتي ريدي مركو يري نبي موسى وحا كيري الله سبحانه وتعالى يا موسى إنني أنا الله أنا وحنا الله إله بانه لا إله إلا أنا إله كلام يجري أني موياني فاعبدني يا عابد مركو يري نبي زكريا وحكير الله سبحانه وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وحنكو بشارنا ويل مقعيسا ويا يحيى مركو يري نبي يحيى وحو الله سبحانه وتعالى وكير كتاب كيسة يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذا كتابك مركو يري داود وحا وكير الله سبحانه وتعالى كتاب كيسة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض داود وخليفة أيان كاغدك ندولك ودحل تويدس أن كسيني فاحكم بين الناس بالحق دتك كحكم حقك كحكم مركو يري نبي عيسى وحا الله سبحانه وتعالى كتاب كيسة وكير يا عيسى إني متوفيك وأنكو أوسن ورافعك إلي وحنا السرع ينكو سوق هذا وحقه ينكو سوق هذا فلما أراد الله سبحانه وتعالى مركو دوني أن ينادي حبيبهم إن أوير حبيب كيس محمد صلى الله وسلم عليه وحاوكيري يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم هذا بقى نبي محمد صلى الله وسلم عليه قدر جاس أيوسي الله سبحانه وتعالى إن لحسنة وأي بنانته نبي محمد صلى الله وسلم عليه وحاول شيء عام الفيل أيوة شيء وسنة كمرودي أبرأي كوحديسة أي كدولين محوها بيتك الله أي كدولين أيوة الله سبحانه وتعالى وقت جالس أيوة شيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحلا شيء إن هاي لبي طبعا كي بشا مولد سنة كي هجري الميلاد جنا وحوها شن بقول كوي تضاعتن ميلاد أي هاي marka nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi sidoo kale Allah subhanahu inkastoo dadka qaarkood ay muxuu ahaa muran ay gelinayaan oo ay yiraahdaan 12kii ayuu dhashay mawlid 8 ayuu dhashay mawlid hase yeeshee waxa la isku raacsan yahay in caamul fil nabigeena uu dhashay sallallahu alayhi wasallam alayhi sida uu xaqiijiyay saxaabiga magaciisu ah Qays ibn Maqrama oo uu yiri ana wa rasuul sallallahu alayhi wasallam wulidna caamul fil aniga rasuulku waxaan dhalalay buu yiri waa Qays ibn Maqrama عامل فيل كأيانو دلني وعندما سئل قيس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أيا وين مثل رسولك أيا كاوين مركز وحو يري رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني درجة حق درجة السجا يجوين وأنا أقدم منه أنا وحن كوين حق على الشذا صوبته وحو يري أنا مركا نبي محمد مركا لا داعي أنا مركي على الدجال كي عامل فيل أو داعي أنا غير أيا هو يدي يجي سوير جوبتي دجالك أو كذا مركا ولا ليال إن أنا وينينو نبي محمد صلى الله وسلم عليه وأوح بنان إن لا جعل هذا وأوح بها صوبت نبي محمد يا صلى الله وسلم عليه وكير حديث كمية حديث ذا وكير قفك مؤمن كإمر من إلا أو يجي على هذا والد كيسة عرور كيسة حتى نفتيسة aniga aan noqdo midka uu ka jecel intaas oo dhan marka maxabada nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaan isfaraynaa nabiga in la weyneeyo ayaan isfaraynaa nabiga in la qadariyo ayaan isfaraynaa marka waxa fiican marka la gaaro waqtiga dhalashadiisa marka la gaaro
haddii aad kari karayso nabiga waa uu soomay maalin kasta oo isniin ah soon haddii aadan awoodinna maalinta uu muxuu ahaa ee uu dhashay rabiicul awal sida culimada qaarkood iyo dadka muslimiinta qaarkood ay sameeyaan 12 mawlid marka la gaarana xus mana reebana inaad soon ku xusto inaad nidaam kale ku xusto oo muxuu ahaa lisu yimaado shaacir la akhriyo siiriis laga sheekeeyo muxuu ahaa hijradiisa laga sheekeeyo intaba waa ay bannaan tahay wax diidaya ma ay jiraan marka intaasan kaga baxayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته